سؤالك ويدينيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن سلام يا أصحاب تقيمة يقدرين تمدن خدك وحين وجدت ولا شين أمال إسماعيل أو سجل حسين هو يديت أو أينو ربنا إن أينو كوريسنا وح أي حقيقة تهاي أمال كسر دو إن لايف كأميرة خطرة توس بعد وجدتها. السلام عليكم دمتي وعن سلامي وأكو سلامينا أمال أنا جنا أمال سجل حسين وحاوية وقبل هذا عرض عشان اللي بتنشرك هيد سما هاي يس عادي عدك واحد يذكروا قاد أمالي سيدتك كوم مقلان وقبل هذا عرض وحين كل رتي مريكنك هاي بركوها أمال أحمد أمال بان هاي صح عيل عادي عادي وهذا قبل السجل حسين بدلي صح مركز قبلاس مريكن عرض هذا الشيء مركز قبلتي واتهاي السجل وحال يدي وعلى حري وحنا لقصو إيديي إن أيدي شيء ويلكيدي إنه حقيقة دي هانتي أين أوجين أدوجنا أدوجين أرنتاس ما ترتاح أمالي مايا واقرت ma noo sheegi kartaa sida ilmaha yare u dhintay iyo wuxuu ku dhintayba maya yaa laakiin waxaan ogahay marka gabadha sagal ilma inay jeceshahay masha allah so beautiful gar inay tahay maasha allah ilmaha yare wuu xanuunsanaa baad ii sheegtay amaaley ilma xanuunsan oo dawo qaatay inuu ahaa dawo qaadin jiray yes ibrahim waxaad ii sheegtay in dawadii ay ka go'day kadibna ay u doontay meelihii ay dawada looga dooni jiray adduunkan xidhxidhan aawadii dawadii oo kasoo habsaantay ilmihii yaraa uu riisankaa u dhintay arrintaa ma jirtaa waa garta haa marka riisanka u dhintay ma aha sagal xuseen inay ilmaheedii dishay ee waxaa weeye in dawadii ka go'day kadibna ay dawadii markay u doontay ay lagala soo habsaamay adduunyadii oo kala xidhan cudurkan jira aawadiis oo halkaasna ilmihii yaraa ku nafbaxay samaha amaal wiilka yar da'diisu intay ahayd magaciisuna waa maxay kolay magaca bixin ibraahim weeyaan sax laakiin reerkoodu magaca kale yaqaaneen jojo jason bay u bixiyeen jason bay u bixiyeen waa gartay qof walba labada qab dadku markay kala duwan yihiin iyaguna magac bay la baxayaan marka 5 sano jira wiilka waa 5 jir insha allah sax waa gartay goorma ayaa ugu dambeysay amaaley ibraahim yare kule waxay u dambeysay almost like 10 months by ugu dambeysay meeqa ugu dambeysay 4 months baad ugu tireen mar hore sabab bay ugu dambeysay meelaha marka muddo isagoo aadan arag oo bahdana waxaa dhacay arrimahan xidhxidhmay aawadiis baydnaan isu arag soo ma maasha allah maasha allah sagal waxaa waa garta kusoo marka gabadhi sar u tagay marka waxaa midkan hooyo maaragtay wiilkii maaragtay jojo waxay tiri hooyo maaragtay aabihiis baan siiyey bay tiri waa garta oo aabihiisu baryaha la jiray intaadan arag waa garta dabeecadaha ya kuweshma wajah hamtaan hooyo macaan sagalay ilmaha kulligiis isku abuusa ma ahayn may bay tiri hooyo sax ilmuhu kala labana isku aabe ahaayeen ibraahiimsa aaba gooni buu ahaa kuwa isku aaba weeyaanba marka iyadu maxay kuu tiri waa kala aabe kala aabe igu tiri hooyo also surprise waa gartay dabeecadaha sagal wax ma nooga sheegi kartaa waxay ahayd gabar shaqaysata wax baratay firfircoon ayay ahayd saanu maqalay aad waxay aad u wanaagsan maasha allah ilmaheeda hataa maaragtay isaafii soo gelin ka jirta hataa maaragtay
soo qubaysaneen haddii jigijaags hadday geenayso maarta ay geenayso hooyo ilmaheeda jecel bay ahayd she's beautiful absolutely maasha allah adigu maxaad dareemaysaa hadda maadaama tahay hooyo ilmihii ayeeyada u ahaydna ka dhintay gabadheediina maanta la xidhay oo booliska gacanta ugu jirto waxaa filgelay absolutely aansoo maalintii isliintii gabadheeda laga xiray la hadeertada cunto ma cuno biyo ma cabo waa dareemi karaa hooyo ininka hadda haddaan cuno xataa hooyada xataa allah naxariistee soo dhimatay umaan ooyin waa dareemi waa run oo qofku markuu dhinto ameelay waad ka samraysaa balse qof nool oo xidhan kama samraysid waa dhibaato xanuun badan waa dhintay ilmihii ayeyda oo hayd oo dhintay gabadhaadii oo xidhan waa arrin aada iyo aada u xanuun badan soomaalidu waxay tiraahdaa inta balaayadu kaa maqan tahay qayrkaa ayay ku maqan tahay waa runtaa walaal waa run marka intaynu inagu inaga maqan tahay dad kale uunbay ku maqan taho oo ay ku rafanaysaa ay ummadda soomaaliyeed maxaad ka codsanaysaa amaaley oo aad rabtaa inaad gaarsiisid codkaaga waxaan ka codsanayaa peace and love midi kale maarta marriageka marka hore maarta waa in laga fiirsado wayaan waa run marriageka inkastoo qofkan ku afgarinin oo isku diin aan lahayn inay guurstaan waa khalad wayaan waa dareemi karaa waa run amaaley dhulkaynu joogno waxa weeye laakiin jacaylka wuu jiraa haddii la jeclaado dib ma lahaba waa run sida hadda maanta igu dhacday oo kale mid iskuulka kasoo baxay sagal iyo james sax ilaa high school ilaa jaamacada kasoo baxeen waa garan karaa waxa weeye waxaynu joognaa amaalay dhul shisheeye ah oon dhulkeeni ahayn noocyo iyo dad badan oo kala duwanna waynu la kulmaynaa guurkuna sidaynu niraahnaba waa calaf baa la yidhaahdaa nin walba wixii alla ugu talagalay ayuu guursanayaa balse diintu waa very important qofku inuu qof islaama yahay oo aad diinta islaamka isu keeni karto xitaa waa muhiim balse caruuraha dhulkan ku dhashay amaaley waa caruuro dadkan oo kala ah waa caruuro aynu naga soo dhex bixi karaan kuwa dhib badan kuwa ciyaala suuqa kuwa daroogistayaala kuwa waxdilaya kuwa naftooda halliga kuwa jeel ku jira wax walba waa inay naga soo baxaan sababtoo ah ummad noocaa u dhaqmaysa ayaynu ku dhex jirnaa waxaan dhilahaa maarta koley sax xataa maarta waddanka xataa dee la geeyo waa samtig weeyaan waa run dhulkeeni way lahaayeen dadka dila dad kuwa hooyo ilmahooda dilaa jira niman badan oo dhowr jeer aynu ku aragnay social mediaha caruurahoodii googooyey hadda gabadha sala isfareen bay ahayd waa garta I love her maasha wax kasta maarta waxyaaba badan ii sheegta laakiin ifar marka business leeyahay marka waxyaabaha qaarkood we can share ma share garan karo anigeeda waa run because different waxaa tihiin laba qof oo kala nooca kala meel ku dhashay kala meel ku koray aan iskuba jahaba u jeedin hadda kor wiilkay waxaa mataqan hooya aabbaha waa isfurnay markaasuu hooya macaan aasan kuweysan ba yiri sax macaan saal baan ku weydiinayaa bri sax waalay maadaama aabbaha kala tagteen nama hesha ba yiri waa run markaasa weli maarin calaftan wali ku jiraa waarsay maasha allah maasha marka waxaa weeye amaal ummadda islaamka waxaad ka codsanaysaa bay la tahay duco iyo inay gabadha yar kuugu soo duceeyaan iyo cid allaale ciddii kayska kaa kaalmayn kartaba waad codsanaysaa soo maha aada iyo aada waxaan ka codsanay ummadda soomaaliya meel kasoo joogaanba ama kala maaragtay keyska aqaanaba ama magaca yaqaan waxaan furiyaa maaragtay in la caawin u baahanahay waa run aada iyo aad insha allah annaguna waa kuusoo duceynayna amaal mataqaana waxaa loosgaray mataqaana wiilkan iyadoo hay baa loosgaray gabadhiba maartay loosgaray waa run laba qof baa kaa baxay
wiilkii waa dhintay gabadhii waa socotay wataa jeelka ku jirta waa arrin xanuun badan oo aad iyo aad u dhib badan in laba qof marquudha guri ay ka wada baxdo waa meeshii ay odhan jireen soomaalidu kugu dhibay oo kaa dhimay isagoo kaa dhintay ayaa haddana qofkii ilmaha dhalay dhulkan aynu joogno lagu odhanaya adigaa dilay waxaad sheegtay in ilmihii baadhis ku jiro oon ilaa hadda la caddayn wuxuu u dhintay soo maa lama oga ya marka maarta Spanish iyo Soomaali maarta meesha ku taqaano markaa deed waa gartay ama waa lagu soo ducaynayaa insha Allahu tacaala duco ayaanu kaaga baryaynaa ummadda Soomaaliyeed inay u soo duceeyaan subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryaa walaalna Soomaali haday maarta ii soo baryo maarta gabadha hadoo alla maarta maxkamadeeda 15 leedahay lacagta beelka wuxuu noqday 500 oo kun oo noqday oo doolarka Mareykanka waanu soo ducaynaynaa amaal insha Allahu tacaala ummadda Soomaaliyeedna waxay galabsatay midna ma jirto waa run ma jirto dad badan oo kiisas noocaasa lagu eedeeyay way jiraan hooyo fiican weeyaan waa sax ma sha Allah oo ilmaheeda jecel aad baad u mahadsan tahay walaashay gacaliso Snapchat hadaa arrinta ilmaha saa u jeceshahay oo tagaranaysa ma sha Allah waa run marka hooyooyin badan bir oo weydin taqaan bir oo weydin taqaan sagal ilmaheeda bay dishay ka heersaan nobody believe that one cidina ma la believe garaynayo waan u soo ducaynaynaa amaal insha Allah tacaala in ilaahay gacanta ka xaq daran ka soo saaro Sagal Xuseen ummadda muslimka ana waxaan leenahay gabadha yar ee 25 jirka ah ha loo soo duceeyo haddii ilaahay yiraahdo annaguna halkaas waan ku soo tukanaynaa waana u soo ducaynaynaa aad baadna u mahadsan tahay xanuunkaaga aad ummadaada la sheer garaysay iyo codsiga aad weydiisatayba waxaan ka bariyaa oo kale mar labaad iyo mar saddexaad in gabadhan loo kaco Sagal Xuseen waa loo kacayaa waa loo kacayaa meel kasoo joogta ama Ingiriis ama London ama UK ama Abu Dhabi meel kasoo joogtaan كرسله سجل ويان وارتنتيجي على سوداي وإن سند ويان وإلمه جعل ويان واتهاي أمال no reason وأوجهاي أمال ولو سوداي الله يخليك الله مركي قرفان إلهي مهلو يا رب ما يواك صوب حيسا قعنت كحق درن هداني وحبا قلبسن إلهي وصول عفين دونا إن شاء الله تعالى وانا لو سو دعينا يا ولاشي معان آدي آد بان كاغا مهد علينا يا سيدا قروح بدن آد ومداد ولو وداكتي نبكي حنونك فراحة بدنا ايدي سو مري وناقيو باشي برواقع عيادنا كل دنبالي دونتان حنون بدن باي أولك أيضا مارسان ولوسكري وقوري لوسكري ودريم كرامل واد مهد سنتهاي ولاشي معان هدوتين اسمقلينا آد بان كاغا مهد علينا يا ummadda Soomaaliyeedna waxaan leeyahay loo duceeyo Sagal Xuseen waa tahay intaas waxay ahayd Sagal waxay ahayd gabadhii yarayd ee labadan bariba ama wiigan ba aynu niraahne lala wareegayay social media ee la lahaa ilmo yar ay dhashay ayaa jira waa tahay oo ay dishay haddaba ilmaha yari ummadda Soomaaliyeed waxaa loo sheegayaa inuu ahaa ilmo yar oo xanuun ku dhashay xanuunsanaana hooyana aanay marnaba jeclayn inay ilmaheeda disho ama wax yeelayso balse dawadii gabadhiyo iyaduba yar tahay oo ilmo yar oo 25 jir ah dawadii aanay hore ugu doonin oo meelihii oo xidhan adduunkii oo aragteen inay wada xidhan yihiin dawadii lagala soo daahay oo halkaas uu delay ka dhacay inuu ilmihii gaadho dawadaasi sababtaasna uu u dhintay wixii jirana ilaahay baa inaga og wax kasto jirana inagu hadaynu Soomaali nahay waxa laynooga baahan yahay walaalayaal gacaliyo inaynu cayda iyo xumaanta iska dayno oo qofkeena dhibaataysan aynu u duceyno aynu garab istaagno ayaa laynooga baahan yahay la inoogama baahna inaynu cayno la inoogama baahna inaynu aflagaadeyno ubad waynu haysanaa waynu dhalay 25 jir la haystaa kuwa ka waaweyn baa dad haystaa kuwa ka yar yar baa dad haystaa waxaa laynooga baahan yahay
وحوي سلمى عبد الله آد بان ولا كو سلاميا إن شاء الله وكسو وعدونا وحان ليهي أمد إسلامك أمد إسلامك أمد إسلامك وحان ليهي هل دايو عيدا يفحمد آد ودان قبل بعد اسكا عايسان أيدنا نقون أيدنا باقرون كذا أقونين أيدنا نلوش كذا أقون أو ميلي كسو جيدا أيدنا نقون بعد هالكا عايولة استاجسان ورجور كنا والبوحي الله أبو طلقلي أيو جور سنية المهن يري وحو كل شيء قرب كالي أكتوجا يكاد درس كيسة أيو راعية أو جور سنية نوعودو نقنيا وحين هلينا كود ددلا وحين قصوا بحيا كوا ان قضاء ان دروغدا وحين قصوا بحيا كوا ودا جانجسه كو وحين قصوا بحيا بلايو دن sababtoo ah waxaynu ku dhex noolahay ummad nooca u dhaqmaysa waxaad rabtaa waxaad leedihiin ummadan qurbaha joogtooy yaa aanu bad dhex gallo laakiin yaana biyana taabanin aan bad dhex gallo biyuhu yayna taabanin aqligaas xagee isaga keenaysaan sidii waxaad rabtaan dad wada wadaada ah dad wada wanaagsan dad wada sharaf leh ma helaysaan wax walba inaga soo baxaya ubad baynu dhalay ma hubno anigayga kuwaygu ma hubo waxay noqon doonaan qof walba amarkuna markuu xabka iyo biyaha tahay walaalayaal baa lagu qoray wax allaala waxaad maraysid haddaad jeel galaysid haddaad wax dilaysid haddii aad lagu dilayo haddaad wax dhacaysid haddii xanuunku dilayo mid walba waa qadarallah ilaahay wuxuu kuu qadaray ayaad walaala maraysaa dadka bini'aadanka ah ee afxumada la taagan ee ilmaha yaryar ee qurbaha ku dhashay caayaya ee aflagaadaynaya kuwa yaryar haddaa haysatid maalintay kuwaadu waaweynaadaan oo aad noqotid teenage ay kuu noqdaan ayaa dareemaysaa dhibaatada teenage-ka dhibaatada walaashaa martay dhibaatada waxani ay u dhacayaan oo dhami waa waxaad hadhowto ogaan doontid walaalayaalow haddii ilaahay ubadkaagaadi kuu hagaajiyey oo ilaahay kaaga dhigay baari oo ilaahay kuu mariya meel wanaagsan daad micnaheedu ma aha inaad ka caruur fiican tahay gabadha caruurteedu xumaatay macnuhu ma aha inaad ka fariidsan tahay macnuhu ma aha inaad ka caqli badan tahay haddaba walaalayaal aynu isu ducayno nimanka weliba gabdhaha caayaya nimanka gabdhaha caayaya naagta xune durduran naagta xune war adduunka Soomaaliya soo inagii lahayn qabiilada jira sanku duraan jiray sankan hadda la duranayo style-ka laga dhigtay ee la wada dhigtay Soomaaliya goorma dadka qaar duran jiray sanka u dirnaan jiray bushinta yar u baadheeraad noqotay ilmuhu noocu doono hadduu doono u labisto suu doono isu durduro macnaheedu ma aha inuu ilmahaasi walaal xun yahay kuwa waxaad arkaysaa jalbaab jiidaya oo xun gabadha qaawan ka xun marka waxaa idin leeyahay qofka aragtidiisa walaalayaal ha ku qiimaynina aragtida qofka bini'aadanka dambi baa idinka socda caqli yeesha dambi baa idinka socda walaalayaal ilmaha yaraad caayaysid ilma waynu sognahay minagoo dhan baa waxeenaynaan gacan ku haynin taadaadan gacan ku hayn taydaanan gacan ku hayn waxaad gacan ku haysid ma jirto naagahan beenta isu wada sheegaya laba story bay naag walba leedahay naag walba laba story bay haysataa midna waa midka iyadu dadka ku shubto oo ah adduunka qofka ugu ilmaha fiican ugu gabadha wanaagsan ugu wiilka wanaagsan baana yaa waajiibka iyadu dadka ku shubto laakiin ma oga magaalada inuu yaalo jiib kale oo adda real jiib oo kii runta ahaa ee noloshaada runta ka sheegayay inuu banaanka yaalo ma oga oo sheekadaadoo dhan tan aad u sheekaynaysid aad beenta ku guraysid ee aad leedahay anigu gabadheedu halkanay martay wiilkaygu halkan uu ka dhacay waa wiil bela ka dhacday masaajidka kama baxo waa shiikh waa keer real life-kiisi walaal way haysaa gabadha jaarkaaga ah wuxuu yahayna waa la ogyahay markaad dhaqaaqdid baa waxaa la odhanayaa laa ilaaha illallah waa tii waxaa ku hadlaysay waa ilmaheedii sidan ahaa ilmahaaga iyo ilmaheedu waa saaxiib waa is ogyihiin warka oo dhan ilmaheeda u keenaya wiilkaagu wuxuu yahay marka inagoo is sheeko og oo is og waxaynu nahay oo is og waxaynu haysano oo is og meeshaynu ku noolnahay walaalayaal meeshaynu ku noolnahay meel ilma laysku caayo ma aha naagihiinan daciifka ah een caqliga weyn lahayn
waashay wada stress ku dilay gabadha jaarkeeda ku maqan ilmaha jaarkeeda ku maqan iyagu isku maqan yihiin walaalayaal cayda iska daaya ubadka yaryar ee masaakiinta iyo ceebta aad la wareegaysaan iyo cayda aad la wareegaysaan walaalayaal ka daaya ummad islaana baynu nahay kuwii gaalada ahaaba ina dhaqan dhaama dadkii gaalada sheeganaya ee diinta masiixiga sheeganaya ayaa maanta ina dhaqan dhaama inagoo dhami meel aynu ku soconno iyo si aynu nahay iyo jiha aynu u soconno weliba dumarka Soomaaliyeed la garan maayo raggana waxaan leeyahay walaalow nooc walba waad guursatay gabadhaasi guursatay madow baad guursatay oo cadaan baad guursatay oo weliba waxaad samaysay oo adigoo nin raga ahi samaysay wax ilaahay xaaraantimeeyey baad samaysay war nin guursadana adaa lagaa helay adaa guursaday nin jinsigaagoo kala ah cidi kuma caydo cidi kuma aflagaadayso cidi waxba kaama sheegto gabadha yar ee Yurub ku dhalatay ama Mareykan ku dhalatay ama Australia ku dhalatay caydeeda maxaa ku suray eeba dadka kala ah dadka duni kale iyo jiha kale iyo adduunyo kale ku dhaxnaa waxaad u caayaysid oo adigu ninkaaga uga hadli weyday oo ninkaaga uga sheekayn weyday oo ninka guursaday darbiyada ula istaagi weyday waadiga wada qariya ee wada difaacaya ee wada qarsanaya hoosta ku wada haystee malaga iska wada dhigaya waadiga malaga iska dhigaya ee iska dhigaya niman balaayo aragoo maqal waadiga iska dhigaya waxa weeye maad u talisid nimanka maad ka hadashid nimanka noocaas maad ka hadashid gabadh nin guursatay baad caayaysaa gabadh noocay rabtaba ha u guursatay war hadday gaal raacdana iyadu quseeya soomaad garan iyada ayaa ilaahay kula xisaabtamaya adigu shaqo kuma lihid ilaahayna ku weydiin maayo ilaahayna kaala tashan maayo ilaahayna ku oran maayo maxaa saa u tiri ilaahayna ku oran maayo maxaad sidan u yeeshay ilaahay ku oran maayo maxaad sidan ugu qaban weyday caydan iyo YouTube-kan aad la ordaysid ee aad balaayada ku guraysid ee aad ubadkaaga walaasiinaysid wayaadan garanayn ubadkaasi inay kaa baaba'ayaan miyaadan garanayn in ubadkaasi aad meel xun ku wadid waadiga gabadh walaasha oo kale oo eedadaayoo kale ah oo habaryartaa oo hooyadaa oo kale ah waadiga caayayee oo meel walba u taagane nin yahow anuu nin naag caayaya ninba uma aqaano nin naag caayaya ninba uma aqaano waadiga gabdhihiisaa u caayaya oo suuqyada saa ula taagan war wax adduunka u xunoo nin guursadana lagu arko adigaa lagaa helay ninka Soomaaliyeed oo suuqa taalaano maalin walba wuxuu la taagan yahay waa kan ninkaygii asna lillah ninkaygii waa kan maad arag wali gabadh social media taagan oo leh naagtaydi waa tan ma jirto mid iska waalan oo iska qaylinaysa la arag laakiin lama arag walaalo wali gabadh la waa tan naagtaydi adiga waa lagaa helay maxaad ku hadlaysaa markoo gabadh yar oo miskiinada qurba ku dhalatay aad ku caayaysaa maxaad ku caayaysaa qof dhibaataysan oo isagu masiiba la soo kulantay walaalo oo dhib haysto ayaad caayaysaa inaydinaan bugtaan oo idinaan caafimaad qabin baan idiin sheegaya inaydinaan caafimaad qabin waad isku diganaysaan waad isku farxaysaan xumaantii oo dhan baa idinka badatay iska daayo xumaanta xumaanta walaalayaal ka fogaada xumaan baad ku waalateen wanaagii baa alla idinka fogeeyey jacaylkii baa alla idinka fogeeyey ixtiraamkii baa alla idinka fogeeyey qof dhibaata haysato warma gaalku he feel so sad buu ka oranaya oh my god I'm very sorry waxa kugu dhacay waa qofkan ninkan aad adduunka ugu nacab tahay ee masiixiga ah markuu ku arko wuxuu ku leeyahay I'm very sorry adigii islaamka sheeganaya weliba Soomaaliga la aha waad caayaysaa gabadh dhibaatadu ku dhacday ee masiibadu ku dhacdaad walaal caayaysaa xagee diintu ku taala xagee Soomaalinimadii ka qabatay xagee wanaagii ka qabtay waxagee waxba Soomaali baan ahay ma tihid islaam baan ma tihid adduunka ka ugu xun baata qofkii walaalka ahaayo dhibaataysan baad ku diganaysaa ood caayaysaa waxaan idin leeyahay oon anigu idinkula dardaarmaya gabadha walaasheena
أمال إسماعيل gabadheeda sagal xuseen la yiraahdo amarku ku dhacay walaalayaalow ha loo duceeyo haddaadan waxba u qaban karin u duceeyo salaada tukataanba u duceeyeen gacanta bini'aadanka alla ka soo furfura gaalada ah ay dhibaatada ku haysa in ilaahay ka soo daayo walaalayaalow u duceeya ha loo duceeyo caydana ha laga daayo anu waxaan idin leeyahay cayda ka daaya ummadda dhibaataysan walaalayaalow cayda ka daaya u duceeya haddaadan u ducayn karin iska daa yaa waa kaa qaaday walaalo waxaa weeye shukur ismaaciil waan kaa qaaday haddaydinaan waxba u qaban karayn ha caayina cayda iyo afxumada walaalayaalow ka daaya dadka dhibaataysan cayda ka daaya anigu waxaan idinkula dardaarmayaa waqti xun baa lagu jiraa xaalad xun baynu ku jirnaa anigaygan maanta idinla hadlayo gooraan gaari doono ma ogi heeraan gaari doono ma ogi berri inaan noolaan doono ma ogi aynu wanaagga isafarno walaalayaal wanaagga aynu isfarno aynu xumaanta ka fogaano aynu xumaanta walaalayaal ka fogaano oo aynu wanaagga isfarno naftani meel ma jirto xalay kii kula qoslayay ee kula sheekaysanayay maanta waa meyd oo waa la aasayaa waad ogtihiin oo dhibaataa jirta cudur xun baa socda masiibaa dunida dhex taala in ilaahay ina mootiyo oo ilaahay ina dhaafiyo isu duceeya walaalayaal oo gabadhaa walaashiina ilmahay ayeeyada u ahayd ka dhintay u duceeya oo u duceeya gabadhaa yare ilmaha loo haysta inay disho walaalayaaloo isu duceeya oo isu naxariista haddaadan intaa awoodin walaalo iska aamus ha caayin gabadha walaashaa ah ha aflagaadaynin xumaantii baa inaga fara badatay wanaaggii oo dhan baa laynaga fogeeyey diin islaan aynu sheeganaynaa soomaalinimaynu sheeganaynaa innagii baana isku maqan haddaadan u ducayn karin gabadhaa walaashaa ah oodan waxba u qaban karin ood xoog iyo xoolaba waxba ku tari karin walaalow ha caayin baan ku leeyahay ilaahay ka cabsoo ha caayin haddii in yaroo soomaalinimo ah kugu jirto haddii in yaroo islaamnimo ah kugu jirto ha caayin qofka walaalkaa ee dhibaataysan haddaadan waxba u qaban karin cayda iska daaya dad waaweyn baa tihiin dadkan wada gebigooda nooca kale ah yaa oo wada dhibaataysan amaal maxamed walaala bilowga kala socon doontaa fideoga bilowgaad kala qabsan doontaa haddii ilaahay yiraahdo sheekadoo dhami halkaasay ku jirtaa waxaan idinkula tardaarmayaa oon idinkula talinayaa garab isu noqdo garabkiina midigtii bidixdaa isu noqdo markaad dhibaataysan tihiin isu buuxiyo garbihiina ducada iyo wanaaggana isku fara isu duceeya oo garba isu noqda oo idinku isgarab istaaga cid idin soo dhexgeli karta ma jirto cid wax idinka qaadi karta ma leh yaa cid wax idin yeeli karta ma leh waxaa weeye walaalayaal waxaan idin leeyahay oon idinkaga tegayaa ducada iyo wanaagga badiya xumaanta ka fogaada walaalayaal xumaanta ka fogaada haddaan idinku dheeraaday wixii qalad iga dhacayna iga raali ahaada wixii aan hagaajiyeyna ilaahay baa ka qayb qaatay oo isla siiyey wixii xunna shaydaan baa shaqo ku lahaa aad baan idinku mahad celinayaa intiina daawatay ee wanaagga soo qortayna waa idinka mahad celinayaa intii waxa xun soo qortana iyaga laftigooda waan uga mahad celinayaa laakiin waxaan idin leeyahay walaalayaal ka fogaada xumaanta iyo cayda qofka walaalkiina ee dhibaataysan ee aad ku haysaan in ilaahay idinkana maalintiina idiin naxariisto waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu